xafiiska madaxweynaha dowladda Puntland xeer madaxweyne lambar Eberhal February 10/2019 kuna saabsan magacaabidda xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda Puntland madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 8aad faradiisa 5aad markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland markuu tixgeliyay baahida loo qabo xulashada golaha xukuumadda dowladda Puntland oo aqoon karti iyo waayo-aragnimo u leh xilka loo egmaday markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugaya xukuumadda cusub wuxuu xeeriyay magacaabidda xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dowladda Puntland oo ka kooban wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiro dowlayaal waxayna kala yihiin sidaan golaha wasiirada cadaaladda iyo arrimaha diinta عاول الشيخ حامد لمبر لabo arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed cabdiraxmaan dhabancad لمبر 3 wasiirka amniga iyo dhiidha-aarta cabdisamed maxamed galan لمبر 4 wasiirka maaliyadda xasan shire abgaal لمبر 5 wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga cabdiqafaar cilmi xaangi لمبر 6 wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Maxamed Xasan لمبر 7 wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Faarax Xasan لمبر 8 wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Axmed Bashiir Muuse لمبر 9 wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maxamed Cabdi Cismaan Machiino لمبر 10 wasiirka hawlaha guud iyo garoomada حسين عثمان لوغادور قبلي لمبر 11 وزيرك هوانكا يا arrimaha qoyska Aamino Cismaan Xaaji Jaamac لمبر 12 وزيرك warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska علي حسن أحمد سباري لمبر 13 وزيرك xanaanada xoolaha سعيد عثمان آدن فيسيكس لمبر 14 وزيرك deegaanka beeraha iyo waraabka إسماعيل ديرية جماديد لمبر 15 وزيرك ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi لمبر 16 wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Faarax Maxamuud Awaash لمبر 17 wasiirka shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Jaamac Faarax Muuse لمبر 18 wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha أحمد محمد يوسف تاران هذا لو حنقلنا وسير كحجانده لمبر 1 وسير كحجانك عدالة دي arrimaha diinta دكتور محمد علي فارح لمبر 2 وسير كحجانك arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Cabdiwali Miri Xirsi iyo Maxamed Musaddaq Maxamed لمبر 3 وزير كحجانك أمنية جديدة أرتا يوسف محمد إسماعيل لمبر 4 وزير كحجانك مالية عمر حسن فقي ياسين إبراهيم عيسى لمبر 5 وزير كحجانك قرشينتا ورمينتا dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ياسين مير محمود لمبر 6 وزير كحجانك waxbarashada iyo tacliinta sare مختار محمود حسن شيته لمبر 7 وزير كحجانka caafimaadka Cabdinaasir Yuusuf Xaaji Xirsi لمبر 8 وزير كحجانka hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta Maxamed Xuseen Xaashi لمبر 9 وزير كحجانka dekedaha iyo gaadiidka badda Yaasiin Cartan Maxamed لمبر 10 وزير كحجانka hawada iyo wasiir ku-xigeenka duulista hawada iyo garoomada Sucaad Saalax Nuur لمبر 12 وزير ku-xigeenka haweenka iyo horumarinta qoyska Saharo Cabdi Xirsi لمبر 12 وزير ku-xigeenka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska Cabdisalaam Xaaji Siciid Faarax لمبر 13 وزير ku-xigeenka xanaanada xoolaha Cabdiwali Saad Cilmi لمبر 14 وزير ku-xigeenka deegaanka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Ciise iyo Faa'iiso Ali Ismaaciil لمبر 15
wasiir ku-xigeenka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga mustafa daahir aadan lambar 16 wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdikhaaliq maxamed maxamuud lambar 16 wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdikhaaliq maxamed maxamuud lambar 17 wasiir ku-xigeenka shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha axmed cabdiraxmaan xirsi lambar 18 wasiir ku-xigeenka tamarta macdanta iyo biyaha maxamed bashiir cabdulaahi wasiir dowlaha madaxtooyada iyo arrimaha dastuurka saalax xabiib jaamac lambar 2 wasiir dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed axmed kulan lambar 3 wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maxamed cabdulqaadir cismaan lambar 4 wasiir dowlaha qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga cabdiraxmaan caydiid ibraahim lambar 5 wasiir dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi xasan rooble lambar 6 wasiir dowlaha caafimaadka sayid cumar guuleed lambar 7 wasiir dowlaha duulista hawada iyo garoomada maxamed xasan killi lambar 8 wasiir dowlaha deegaanka beeraha iyo waraabka cabdirashiid cali geelle lambar 9 wasiir dowlaha kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdiqani geelle maxamuud xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu saxiixo madaxweynaha dowladda Puntland waana u saxiixay Dr. Siciid Cabdullaahi Dari madaxweynaha dowladda Puntland